السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيرتك وحن يوتيوب channel كيغا وين السلامة إن هذا يوتيوب كويس بتاعي ولا سبسكرايب صار سو كريتو فيديو غانا لايك صار مهد سنيد إن ما أنت شاكدين وحي كسابسن تاعي شمبرتي أيضنا أقليك بدنين شمبرتان waxay soo aaday meel Kenya si ay guri uga indheysato maadaama dhali rabto ubad cusub. Shimbirta waxay tiri meesha waa meel aad qurux badan waana inaan ka raadsada guri anfacayo. ugu dambeyn si uu indheynayso waxay ka heshay geedkan waxay ka samaysatay guri. ugu dambeyn waxay dhistay guri aad u qurux badan. shimbirtu waxay bilowday inay ukun dhasho laakiin agteeda duduun ku taalay waxaa degnaa mas aad u weyn. maskaas gurigiisa wuxuu ku yaalay duduntaas dhexdeeda. maalintii dambe maska waxa u soo xarfay ukun aad iyo aaduna u farxay. wuxuu iska ilaalinaya oo kaliya inta shimbirta duulayso. shimbirta way duushay wuu arkay kadibna waa uu soo baxay si uu u cuno ukumihii shimbirta. maskii waa u imaaday wuxuuna arkay ukunta meeshii taalay. mursa dhaafinay kulli waa uu cunay. markii uu cunay kadibna tartiibtiisa waa uu iska digo wuxuu ku laabtay godkiisa. shimbirtii gurigeeda ayay ku soo laabatay hase yeeshee meesha ma yaalo wax ukuna. aad iyo aad ayay u murugootay waxayna ku oysay aawe ukumahaygi laakiin wuxuu jawaabay weysay wayse iska aamustay. kadib waxay sii wadatay dhalitaankii ukumaha. waxay dhashay ukumaheedii kadibna waxaa la gaaray xilligay bixi lahayd. maskiina sidii caadada ahayd waa uu soo aaday si uu u cuno ukumihii ay dhashay hadda. maskii markuu cunay kadib godkiisa ayuu ku laabtay. waxaa imaatay shimbirtii way yaabtay haddana maanta ukuma uma yaalaan. way fikirtay sidee ku dhacday ee weyba ka dhaadhici weysay. ugu dambeyn sidii caadadeed waxay ku oysay aawe ukumahaygi laakiin cid u jawaabtay ma lahan. kadib waxay iska sii wadatay dhalitaankii ukumaheeda. ugu dambeyn way fikirtay way duushay kadibna waxay ku dhuumatay geed ku ag yaalay geedka ay ilmaha ku dhashay. sidii caadadaheedna maskiiba uu iska soo baxay si uu ukumaha u soo cuno. waxay aragtay maskii oo ukumaheeda cunayo. way isku dayday inay ka badbaadsato ilmaheeda laakiin ayadaa nafsadeeda halis gashay. kadib go'aan waxay ku gaartay inay maskan siday ku qaarijin lahayd falankeeda gasho. way soo baxday waxay imaatay qasrigii boqortooyada. kadib boqoradii oo qabaysanayso ayaa waxay qaadatay dahabkeedii weliba qoorgashigeedii. kadib boqoradii oo qabaysanaysaa waxay aragtay in qoorgashigeedii ay shimbir la carartay. waa ay qaylisay waxaa ka daba baxeen dadkii ilaalada boqoradda ahaa hase yeeshee maysan gaarin. shimbirtii gadaal ayaa u soo fiirisay weliba waxay aragtay in la daba taagan yahay. aad ayay u faraxday way soo waday dadkii. ugu dambeynna waxay keentay godkii uu maska ku noolaa ayadoo ciyaarsiinaysa dadkii ayay jidka ku soo waday.
markii uu dhawaatay godkii uu ku jiray maska way soo dhawaatay waliba dhanka dhulka u soo dhawaatay wayna ku sii daysay qorgashigii ay soo qaaday kadib go'aan waxay dadku ku gaareen inay burburiyaan duduntan si ay uga soo bixiyaan qorgashiga intii duduminayay dudunta waxay adeegsanayeen waramo si lama filaana maska ayaa soo baxay si wada jirana waxay ugu garaaceen waramadoodii halkaasna maska ayaa ku dhintay shimbirtii halkii waxay ka sii wadatay dhalitaankeedii waliba si farxad ay ku dheehan tahay saaxiibayaal sheekadan waxaan ka baranaynaa cadowgaaga si walba uu kaaga awood badan yahay inaad ka hargudan karto waa haddii aad u fikirto